السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن حكيمية الأوفيشال فضل الجنة كذا تكون عشبت سبسكرايب لايك شير لا على الوسيل لا جفت مع معك الشير سي ده عندنا مرة سي جارسي أصحابتي الدنيا ده فيه ذا كل جوكتر كنا تعاو يا دين وذا اللي وحاكو دقنا أنك رياكشن كأما بالريفوق يساو التخانين يا كله فنان أد وذا جماسن إنك الصومالي يجوك جارهان قبل كبنادر قدر كيو سأوذا جماسن هيسبو سوق هذا وإسكالي جايو نين ميلتري أما دلجر هيست دلجر أيالها كليت وحوكو أمانة هم إسكالي جايو نين يعني ودني دلكيسة ددكيسة دافعية هبقى هات هرت أنا مراه مية جدنا لكن waxa ay geedana waxay tahay labiska iyo qaabka training marka aad sameeyay ama aad metelsa wada taxaniin waxa midka aan soo qaadana hoos ila fiiriyo saawada jeedaan ninka relax oo gurigiisa ayuu joogaa reerkiisa familkiisa ayuu ku dhex jiraa wiil iyo gabar iyo hooyadood balaa ku sii socono كل تساوي جدا نينك عسكري مركو uu yahay horta nin xura ma aha anytime ayaa la soo wici karaa ma aha yani nin haysto waqti uu ku raaxaysto كل تساوي جدا telefoon baa u soo dhacay tolo maxaa la dhihi doonaa bal wax yar sii daawano wada jeedaan telefoonka uu ku hadlayaa waxa uu soo istaagay telefoon buu ku hadlayaa wuxuu aadayaa dhanka iyo armaajada ama labiskiisa qaabka uu jiray bal wax yar haydii toos wuxuu abaaray waa qaybta dharka ay ugu jireen armaajada tolo muxuu ku soo bixin doonaa bal asi yara eegno كل ساعة وذا جيدان نينكي لبس بوسو حرتي ونين عيدنا كمان دوسة كل تحاسكي سنو يو سوهر استاكتو afka ilaa waxa kama dhigi kartaa u jeedaa ninkan almost diyaar inuu noqdo oo go'aan qaatay gacmaha un bileedahay hay sax u jiraan bal aku sii socono كل تساوي جدان wuxuu leeyahay dalkeygii hooyo aad baan u jeclaa labiskiisa soo xirtay uniform wali ahna ama labis commandoska magaciisa qoranya uu wataa kullu wax maleena ciidanka inuu ka tirsan qaabka labiska loogu soo diyaariyay wala si yara eegno كل هذا wuxuu budbudinaya waa caruurtiisii كل تنين سفر عمل أنا دب أسول نخن دونين أسول لامن دونين أيوه وأجيها كل تجو أمبو جاروح ولا أما أنا بحاي أما ذلك بعد اسمه بل أكو شيء سؤالنا aad fiirisid qaabka gaariga uu u fuulayo isma dheesid yani qofka shacab waaye ama fanaan waaye kuleet inkastoo aalamiita leeyahay oo nin yahay jirkiisa dhisma had iyo jeeraan qaabka u fuulay xataa isma leed wuxuu soo xasuusiyay hees kale oo Chris Brown wara u qaadsan camal ayadana waa satellite-ka si saaxiibtiis raacayna asna military san camal uu yahay bal si ku sii socon daryeelka ubadkeeniyo
ujeedaan labiska horta qaabka uu soo baxay innaba caadi ma ah yani labis diyaarsan aan ninka loo habeeyey kuleyto saaskan waxaa u malaysaan markaan leeyahay ninka ciidanka miyuu ka tirsan yahay labiskan yani sidee loogu soo aadin kara qof fanaan inuu hees qaado bas loogu talagalay mise waa wax suuqa yaallo oo lasoo gadanayo ma isli wax suuqa yaallo laakiin miyuu dhici kartaa dowladda inuu ku jiro ama ninka ciidan qarsoon ba yahay balaa ku sii socono wada jeednaba ninka waa janal hogaamiye kabtaan because astaanta calankaba asaa wato safka ciidankana asaa u horeeyo bal miyaana isdhihi karaa yani barnaamijkan wax laga shaqeey miyuu noqon karaa waa maya laakiin qarannimada ayaa ku weyn ayaan dhihi karaani bal sii socono aragna waxa uu samayn doona fiirsha xataa exercise-ka si u sameynayo ama caalamiintada waxaa is leedahay ninkan commandoska dhabta ahaa buu waay bal fiiriya ayadana qaabku exercise u sameynayo saa ujeedaan dhan walba waxaa is leedahay inuu ka diyaarsan yahay sababto qaabka caalamiintada uu leeyahay labiska si usoo saarayo iskooladiisa dhinaca ugu xiran koleyta nin xaadir ah wey bal aa kusii yaro socono weli caalamintadiisa si wataaba busha hadba dhinac loo dhahayo عادي ما هنك ديارسينه ظروفه ما كرهت شيء دولتي ذا دفاع عنيا نقشيو تندانسي ما أخا دكين تشاو ظروفه ما كرهت شيء دولتي ذا دفاع عنيا jaw uu taagay kuleeto qofku jaw dhahayaa way cid kale ma ah waa reerkiisa familkiisa quruxda badnaa uu ka soo dhex baxay sababta uu soo dhex baxana sabab kale ma ah waa dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacdo sababta ama la dhihi karaa yani qof saan ah ayaa waxyaabahaas ku mashquula waa maya sida u wada jeedno ninkan waa nin wadani ah laakiin miraha heesta ku dhaganaani abwaanki sameeyay because ereyada waxa umadaysa xoogay inuu soo gagaabiyo dhan walba ha noqoto heesta si walba ha noqoto laakiin ninka soo saara wuxuu yahay qadarkiyo si kale kuma soo saarin dharka quruxda badan ee xariirta ah ee loo soo xiray iyo calanka uu matalayo sababtoo ama la dhihi karo qof aan wadani ahayn ayaa sidaa samayn karo fanaag wuxuu cadeynayaa wadani inuu yahay heesta sababta u soo qaaday waxa uu sameeyay because waxa dhan waxa keenay kheyradda iyo wadaninimada ku jirto because maanta hadduu reerkiisa ka tagay beri qofka matalay waay anaga kuleet maadaama anaka wadankii joogin waxaan leenahay saad hore u soco halkan ay daawanaysaan waa xakim yar official fadlan janalka dad ku cusubta subscribe like share dheh si gaarsii asxaabtaada dunida daafaheeda kala joogto had iyo jeer waxa ku dhahnaa shareka noo badi si noogu soo biirta asxaab cusub ku hadda hore noola joogto waxaan ku leenahay welcome my brother hore noola joogtay mar walba walaalkeena ahayd familkeena ka mid tahay kan cusubna waxaa leenahay gambal subscribe dheh gambalaalka dhac siiso calamka furo si uu kuu soo gaaro فيديو الله فيديو وهري أصدقنا نقطة قف وهري الدعوة. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى.